Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Darsigan waxaan idinkugu soo gudbinayaa shuruudaha lagaaga baahan yahay si aad YouTube-ka lacag uga samaysid. Qodobka koowaad waa inaad leedahay Gmail account. Gmail account waa inaad leedahay ama hadda inaad samaysato. Laakiin Gmail-kaaga da'da aad gelinaysid waa inay ka weynaataa 18 sano. Sababtoo ah haddii 18 sano aad ka yaraysid laguma ogolo in aad lacag ka samaysid. Haddii aad mid hore u lahayd fiiri da'daada, haddii ka yarta 18 sano samee mid cusub oo ku sameey 18 sano. Xataa adiga ka yarow da'daada ha ka yaraato 18 sano. Ma aha in aad 18 sano ka yartahay ama aad ka weyntahay, laakiin shuruud Gmail-kaaga waa inuu 18 sano ka weyn yahay. Waxaan ka wadaa dhanka da'da ku qoran. 2 waa inaad samaysataa YouTube channel aad ku samaysaa Gmail-ka aad samaysatay. Channel-kaaga magac u bixi. Qodobka saddexaad waa inaad verify garaysaa channel-kaaga. Waa inaad verified ka dhigtaa channel-kaaga si aad u soo gelin kartid videos ka dheer 15 daqiiqo. Sidoo kale markaad channel-kaada verified ka dhigtid waxaad awood u yeelanaysaa inaad video kasto soo raacisid ama aad hordhac uga dhigtid sawir qurux badan oo loo yaqaano thumbnail. 4 soo upload garee ama soo geli videos dadku ay aad u xiiseeyaan noocu raba ha ahaadee oo adiga iyo barnaamijyada aad ku fiican tahay. 5 waa inaad heshaa subscribers aad u fara badan oo gaarayo 1000. Shuruudda weeyaan waa inaad heshaa 1000 subscribers iyo in daawashada videoskaaga ay gaaraan 4000 oo saacadood. 6 waa inaad samaysataa Google AdSense. Google AdSense-ga waa meesha lacagta laga sameeyo. Waa shirkad videoskaaga xayisiis dul saarayso. Lacagtan waxaad ka helaysaa xayisiintaas. Google AdSense-ga waa muhiim. Dadka ku nool dibadda way u fududahay inay samaystaan Google AdSense waayo waxay joogaan waddan leh Google AdSense. Waxaa lagaaga baahan yahay inaad leedahay address. Meesha aad degan tahay ayaad gelinaysaa lambarkaaga, magacaaga iyo zip code-ka ama postal code-ka wax loo yaqaano. Halkaas oo hadhow lagugu soo diri doono warqadaha YouTube-ka ay ku soo diri doonaan kuwa pinka iyo lacagtaba waddanka lagugu soo diri lahaaba. Sidoo kale dadka ku nool Soomaaliya aan lahayn address-ka ama bank account-ka waxay samayn karaan in qof ku nool dibadda xataa waddanka ugu sokeeyo oo ah Kenya oo caadi wuu leeyahay AdSense, bankina wuu leeyahay Western Union wuu ka shaqeeyaa. Sidoo kale address-na way leeyihiin iyo boosto Kenya iyo wixii ka shisheeyo ama Yurub ama Maraykan meesha rabta ha ahaato. Qof aad ku kalsoon tahay ehelkaaga ama asxaabtaada address-kiisa waa inaad heshaa si lacagta aad shaqaysid lagugu diro account-ka qofkaas deedna adigana kuu soo xawilo. Marka shuruudaha lagaaga baahan yahay waa intaas. Waxaan filayaa inaad fahanteen. Haddaad ka heshay videogan fadlan like saar. Haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh si aad u heshid muuqaalo ku qanciyo oo ku saabsan YouTube-ka, luqadda English-ka iyo dhacdooyinka caalamka. Haddaad awoodidna la wadaag asxaabtaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.